Hello, my name is Louivsille Yusuf and I'm from Somalia. I attend Kenwood Elementary School, and what I like about Somali Center first is you can bring your homework in and you can get a higher grade in school, and they give free time. They always help you when you're stuck on a problem, and when you're stuck on a problem, they will help you as soon as you raise your hand. About this place? I like about it how they really just have snacks. Snacks? This is Maisel Muhammad, and I am from Somalia, and what I like about this place is the tutoring and how I make new friends, and that the website IXL teaches me really good because it has different things you can learn, like language arts, social studies, science, and geography, and yeah. waxaan aad ugu faraxsanahay in arrinka noo suurta gashay in muddaan ka shaqaynayni. waxaa kaloo noola shaqeeya macallimiin 30 sano khibrad u lahaa dhanka districtiga sida macallimada la yiraaho Ann Walsh, iyo muhiimadu waxaa waaye inaan assessment ku sameynaa caruurta labada isbuuc u horeeya oo aan ka helno meesha ay ka joogaan waxbarashadooda iyo fasalka ay dhigtaan. waxaan xiriir fiican la leenahay macallimiinta iskuulaha, waxaan la xiriirnaa, waxaan weydiinaa cunuga muxuu u baahan yahay meesha ka dhisnaa. badankood Soomaalida markaan fiirino caruurtooda meeli aad uga liitaan waxaa ka mid ah readingka iyo writingka. wadankan Mareykanka waxbarashadiisa dhan haddaas u fiirisid waxay ku xiran tahay readingka iyo writingka. marka readingka iyo writingka in kor loo qaado oo aan u sameynaa ardayda si aad xeerka laga rabay ay u soo gaaraan.